wasiirka wasaaradda dibadejinta mudane Axmed Cabdi Kaahin ayaa ka qayb galay xaflad loo sameeyay furitaanka cisbitaalka weyn ee Ugaas Mustafa General Hospital ee magaalada Xariirad. xafladan lagu maamuusayo furitaanka cisbitaalkan ayaa waxaa sidoo kale ka soo qayb galay boqolaal dadweynaha oo ka dhex muuqanayaan wasiiro maamulka gobolka Salel iyo kuwa degmada Xariirad, saraakiisha ciidamada amniga ee degmadaasi Xariirad, madax ka socota hay'adaha caalamiga ah, qurba joog iyo bulshada rayidka ah. munaasabadan ayaa waxa ugu horeyn hadallo kooban ka soo jeediyay qaar ka mid ah dadweynaha degmadaasi oo ugu horeeyo maayirka degmada Xariirad, qaar ka mid ah waxgaradka iyo cuqaasha degmadaasi, haween iyo dhalinyaro, waxaanay dhammaantood si weyn ugu mahad celiyeen jaaliyada gobolka Salel ee ku nool daafaha caalamka oo iyagu maalgeliyay dhismaha cisbitaalkani sidoo kalena soo qalabeeyay. waxaa sidoo kale iyaguna hadallo kooban halkaasi ka soo jeediyay barasaabka gobolka Salel mudane Cabdullaahi Farax Meedhane, Dr. Deeq Siciid Jaamac oo ka mid ah madaxda WHO ee Somaliland, Dr. Nimco Cali Guray iyo Xaaji Cawke oo ku hadlaya iyagu afka qurba joogta gobolka Salel ee ku nool dunida dacaladeeda. wasiirka wasaaradda dibadejinta mudane Axmed Cabdi Kaahin oo isagu wakiil ka ahaa wasaaradda caafimaadka waxaana hadaladoodii ka mid ahaa maanta ninka arkaa qofku waa ka farxad buu maartay ilmeynaya inta ka dhiman waa inteedii iyo intii dawladda shacbigu isaga tashani isaga wuxuu ku darsan ka dawladda haysta intada xukuumadda iyo maartay madaxweynaha baa naga mataleyna wixii maartay annaga waajib nagu ara ya hadday madaxweynaha iyo hadday xukuumaddiisa tahayba waa la gali dibad joog iyo qurba joogga wixii muxuu ahaa iyo gudaha joog wixii dad qabsan lahaa waynu qabsan waxaana maanta iskugu nimid halkan in wasaaradda caafimaadka hor dhigno su'aalo waanu qabsanay qaybteedii wasaaradda caafimaadka qaybtaadii baan sugaynaa taaynu maanta iskugu nimid waa inta way qurba joog meel kastuu joogo kii London joogo urkii muxuu ahaa gurmad Nimcaali Guray iyo Xabiib Sidiin oday muxuu ahaa Cawke oo qurba joog oo dhan xiriiriya kii Ottawa joogay Canada, kii Edmonton joogtay, kii Australia joogay, meel kasta iska yimaadeen waxbay soo urureen waxaad arkaysaa waa la isku keenay kii Djibouti joogay Cabdiraxmaan Xaran tay wadageedana muxuu ahaa halkuu hawsha ka bilaabay ku horeeyo hawshii halka ahayd maanta halkaasay maraysaa. ilaahay baa mahad leh, rasuulka amaanay, inaguna waajibkeena mudanay. waxaan ducada qof kasta way ku waajib weeyaan ducada inaan gurano waa mise waajibkeygii baan mudanay. laa shukr ala waajib maalintii horeysanay haddana waa leeyahay maanta la jeclay qabat maalintii dhagax dhig walwal bay hayay dhakhtarka muudismi baas lahaa oo lacag $10,000 baysan. maantana markaan arkay alla bilo ku ciyaarna mislee dadkan dhakhtarkan iyo dhibaatada iyo hawsha loo soo marayo waxay yareen marka dhakhtarka anoo la kaca qofaya oo badanayo anoo ku hadlay afka haweenka ayaan adeer Cawke la tashaday wax badan aan soo dirin $30,000 markaas Allah jazaay siiye magac iyo sharaf iyo asluub waxa le ururka uu doon adeer uu yahay wakiil ilaahay baa mahadi awood iskale maanta hadaan joogno Xariirad waxaan maleeyaa markii saddexaad ay maadeen tahay anigoo inta ka soo ururka guddoon gabagabadii ay noqotay dhakhtarka Ugaas Mustafa Xariirad Hospital ay noqotay ilaahayna nagu asray xagga dumarka horta waa ilaahay baa mahad midda labaad midda koobaad waxa weeyaan hawshan dib waxa laga warramay dhibtii loo soo maray rag iyo dumarba ininka iyo annakuba cid gaar u lahayn ma jirto waa la isku wala la iska joogo wala urday gabagabadiina maanta way lagu jirtaa qurba joogta shilkoodii aynu ay bijinta ku cunaynay soo ururiyay ee ku dhisay naad baa ugu mahadnaqay annagu inta jaad baynu nagu ku cunay waa taan u tay keenayeen way noo dhiseen dhakhtarkaasi uu noqon iskuulkii farsamada aan isla garanayna inagu ogaada. intaasi kadib waxaa cisbitaalkani lagu wareejiyay maamulkiisa wasaaradda caafimaadka Somaliland waxaana si rasmi ah xariga looga jaray cisbitaalka Ugaas Mustafa General Hospital ee degmadaasi Xariirad
waxaana la filayaa inuu cisbitaalkani baahi wax badan ka tari doono baahiyaha caafimaad ee in ka badan 20,000 oo qof oo ku nool deegaankaasi. Maxamed Cawaale Daahir, Xariirad.net, Xariirad.